isbeddelkiina waa socdaa 13 ka dhalinyaro ee hormoodka ahaa inay ahaayeen dad visionary ah oo ka duwan dadka hadda nool waxay lahaayeen hadafkaasi kaliya ma ahayn xornimo doon wuxuu ahaa isbeddel doon oo xaaladda lagu jiray iyo gumaysiga lagu jiray ummadda Soomaaliya inay ka baxdo oo ay hesho mustaqbal wanaagsan waxay fahamsanayeen in dawladda loo qaybiyo 3 qaybood qayb sharci dejin ah qayb xukun ah iyo qayb maxkamad ah 3 awoodood oo kala qaybsan oo balance garaynaya dawladdan hadda joogto waxay ka baratay ogaada annagu waxaan ku nimid isbeddel doon yaa ku nimid isbeddel doonka la sheega ma ahee waa isbeddel doon dhab ah yaan ku nimid oo aan nidhi xaaladda jirto waxbaan ka beddelaynaa inta yar aan joogno halganka isbeddel waa socdaa annagaa ku nimid isbeddel dhab ah isbeddelkiina waa socdaa annagoo ka baranayna wax Israel annaga tilmaan Israel baa noo ah ogaada ma aha waxaan adduunkana ka baranayno waa waxaan indhaheenna ku aragnay weeye waa awooyaasheen waa aabbayaasheen weeye waxay sameeyeen oo u hagaagay oo u shaqeeyey aan hubo annagu inay noo shaqaynayso oo maxay tahay in aan mas'uuliyadda shacabka aan la wadaagno